garaadka guud ee beelaha Khaatumo garaad Jaamac Garaad Cali ayaa si weyn ugu tuntunsaday siyaasadda Puntland ee ka dhanka ah maamulka Khaatumo State isagoo garaadku sheegay in Puntland waqtigan la soo baxday waxyeello ay ku hayso shacabweynaha Khaatumo. garaad Jaamac Garaad Cali waxa uu ka hadlay waa sida garaadku hadalka u dhigay ee duulaanka Puntland deegaanka Tukaraq. garaadka oo arrimahaas ka hadlayana waxa uu yiri dhibaatada maamulkooda uu wado ilaa iyo maalintii shacabweynaha reer Khaatumo ay samaysteen ama SSC ama Khaatumo State of Somalia maamulka Puntland wuxuu ku waday dhib dadka yar dhibtaasi isma ay hortaagin halgankii lagu jiray waxa kaliya ee ay samaysay waxa weeye inay cadaawad dhex dhigto shacabka reer Khaatumo iyo shacabka Puntland. waxaan u sheegaynaa wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya oo qaabilsan waxaan u sheegaynaa urur goboleedada sida EU-da wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya kuwa deeqda bixiya in dhaqaalaha lagu laynayo lagu burburinayo lagu cuna qabataynayo dadka Khaatumo dhaqaalaha dadka iyo waxbarashada loogu hor istaagayo wax qabadka kale loogu hor istaagayo doonistooda shacab iyo qofeed ee Ilaahay siiyay lagu cabrinayo waxay keenaysaa dhibaato aan hore Soomaaliya uga dhicin inay